daawadayaal qarax xooggan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Istanbul gaar ahaan meesha lagu magacaabo aaga Taksim taas oo sababtay qarax goordhaweyd ka dhacay halkaasi in dadyo kala duwan ay ku dhaawacmeen sida ay warbaahinta dalka Turkiga qorayso muuqaalkan hadda halkan ka hooseeya waa muuqaal goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa jira dadyo fara badan oo Soomaaliyeed oo halkaasi ku sugan waa Istanbul ma jiro wax war aan ka helnay in halkaasi dadyo dhaawac ama waxyaabo soo gaareen inay ka mid yihiin Soomaali balse xogihii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in halkaasi qarax markaasi uu ka dhacay qaraxaasi ma cadeyn karno sababta uu dhacay sidoo kale waxyaabaha markaasi sababta ugu weyn lagu tuhmay inay tahay balse warbaahintu warar kala duwan ay qoraysaa daawadayaal wixii akhbaar ka soo kordha halkan ayaan dib soo gelin doonaa muuqaalka qaraxu ka dhacayna waa kan qaraxuna waa ka halkan idinka muuqda muuqaalkan daawadayaal wixii akhbaar ah ee ka soo kordha qaraxaasi halkan ayaan dib soo gelin doonaa mahadsantihiin muuqaalkan sii shirkare aad baa mahadsantihiin